Education Platform. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوّا كلامك وحبرشة قلم Education Platform وعبد العزيز ولي إيوه مادة تكنولوجيا فصل كتضباط دوكسي دح waxaan hore soo qaadanay 13 ugu horeysay jabtarkeena koowaad sidoo kale waxaan qaadan doonaa maanta hadii la yiraahdo cashirkeena afraad maadada teknolojiyada cutubkeedii koowaad sida cutubka aan hore u soo sheegnayba cutubkeena waxa uu ku saabsan yahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo teknolojiyada qaabka ay uga caawiso baahiyooda gaarka ah waxaan hore soo qaadanay tixgelintooda sidoo kale kaabayaasha aragga sidoo kale kaabayaasha socodka maanta waxaan qaadan doonaa hadii la yiraahdo kaabayaasha maqalka dadka maqalka baahiyaha gaarka ah ka qaba iyo teknolojiyada sida ay uga caawiso si wanaagsan aan wada soconno ana ka faa'iideysano casharka dadka baahiyaha gaarka ah qabana aan tixgelino soo dhawaada cashirkeena afraad kaabayaasha maqalka ama caawiyayaasha maqalka sida aan hore u soo sheegnay in aragga uu yahay nimco ilaahay uu nasiiyay sidoo kalena maqalku waa gallad iyo nimco uu Allah siiyay bini aadamka dhammaanna nimcooyinka ilaahay uu nasiiyay haddii aan tirino marna ma soo koobi karno ilaahay ee quraankiisa ku yiri in tu'iddu ni'matallahi la tuhsuha haddii aad tirsan nimcooyinka ilaahay ma koobi kartaan sababtoo ah adiga oo dhan ayaa waxaa tahay baahi socda baahiyahaadi marka haddii la tiriyo lama koobi karo nimcada ilaahay marka uu ku siiyo waxaa ka mid ah maqalka ayaa ka mid ah qofka uu ka maqan yahay ayaana dareemi kara qof walba nimcada uu haysto kama warramo ilaa uu waayo okay maqalka qofka waxaa ku dhici kara jirooyin kala duwan sida aragga way ugu dhici karaan jirooyin kala duwan hore u soo marnay sidoo kale maqalkana waxaa ku dhici kara jirooyin kala duwan waxaa dhacdo qof in uu dhagaha ama maqal la'aan ku dhasho okay qofka waxaa suuragal ah inuu ku dhasho asaga oo aan maqal lahayn waa amar ilaahay okay sidoo kale waxa amar ilaahay ah qofka in jirooyin dartood oo maqalka uu waayo ama uu cuslaado in inta xanuunsado jiradaasi ay dhagaha tirto ama in inta xanuunsado jiradaasi ay dhagaha ka cuslayso ayadana way dhacdaa okay teknolojiyadu marka teknolojiyadu waxa ay hormarisay qalab fududeeya maqalka ama jabaqda kor ugu qaada qofka maqal culays qaba fiiri sawirka hoose sawirkan hoose waa sameecado sameecadahaasi qofka waxay ka caawiyaan dhagaha ayuu sida loo geliyaa afka hore dhagaha la geliyaa ka dambana qofka uu la hadlaayo waxay ka caawinayaan in hadalkiisi uu kor u qaado maqalka ama jabaqda shanqarna waxa jabaq waxa waa shanqar in waxa ay shanqaraan ay waxa la jabaq jabaqdaas shanqarta ah ama codka qofka la hadlaayo sameecadahan dhagaha qofka ugu xiran ayaa kor u qaadayo ka dambana qofkii saas ayuu ku maqlayaa marka waxaan ma jirin intaysan teknolojiyadu soo bixin qofkii dhaga culays qabo waxay ahaan jirtay in kor loogu dhawaaqo oo ilaa iyo uu ka maqlo asagana uu ku celceliyo ayaa uu ku dhaho haddii qofka uu maqalka uu la yahayna waa bas ba asaga sameecadaha xataa waxa uma tarayaan sababtoo sameecadaha waxay caawin karaan qofka dhaga culayska qabo okay halkan hoose ee lagu sharaxay marka waa sameecado yar oo loo geliyo daloolka dhegta ayaa la geliyaa sameecadan waxa ay weyneysaa jabaqda si uu u maqlo qofka
maqal culayska qaba lagama hadlayo sameecadahan inay wax u tarayaan qofka maqal kala oo ama ku dhashay ama inta xanuunsaday beelay lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa qofka maqal culayska qaba oo tusaale ahaan dhagaha ay ka culus yihiin qalabkan waxaa loogu talagalay in uu jabaqda sare u qaado ama uu jabaqda saafi ah uu dhegta u diro waxaa loogu talagalay marka in jabaqda ama codka ama waxa uu rabo qofkan inuu maqlo in ayagoo saafi ah oo xoogaa guuxii kanta wixii laga dhex saaray in qofkaasi uu dhegtiisa ay maqasho amaba haddii qofka uu hoos u hadlaayey ama waxa jabaqda ay ahayd jabaq codkeeda gaaban yahay in ay u dheerayso si uu qofka u maqlo okay waxqabadka koowaad marka saaxiibkii ayaan su-aashan weydiinayaa saaxiibkaa kursiga kula fadhiyo bal su-aashan weydii waxaad aragtay arday qalinkiisu dhegta gelinaya maxaa tala ah oo aad siin lahayd bulshadeenu inta badan waxay sameeyaan qalinka dhegta ayay gashtaan istakiin ama geed tallaalka qoryihiisa ayay intay soo gooyaan iyo dhagaha gashtaan waxaasoo dhanna waa mamnuuc sababtoo ah dhagahaada waa sameecado gudaha ku yaalla qoryahan waxaa suuragal in sameecadda dhegta gudaha ah ay wax kaa gaarsiiso waxaa loogu talagalay suuf yar oo haddii aad ugu talagalay inaad ku nadaysato ay jirto farmasiyaasi iyo meelaha lagu gado inta kasoo gadato suufkaas qashinkiina uu kaa soo saarayaa sameecaddii gudahana waxa ma gaarsiinaya laakiin qalinka furkiisa ama qalinka tubadiisa ama istakiinka ama geed talaalka qoryihiisa iyo waxyaabaha la midka ah in dhagaha la iska geliyo waa mamnuuc okay waxqabadka labaad marka waxa aan soo baarayaa noocyada sameecadaha dhegta iyo sawiradooda internetka gala google-ka weydiiya noocyada sameecadaha loogu talagalay dadka maqal culayska qaba iyo sawiradooda waxaan rajeynayaa marka in aad ka heli doontaan noocyo badan oo kala duwan iyo sawiradooda aan soo dulmarno marka cashirkeena afaraad waxa uu ku saabsan yahay maqalka maqalkuna waa mid ka mid a nimcooyinka ilaahay uuna siiyey ee aan la soo koobi karin nimcooyinka ilaahay lama soo koobi karo isagana qur-aankiisa noogu sheegay wain tuciduu nicmatallaahi laa tuxsuuha haddii aad tirisaan nimcooyinka ilaahay oo idinku galladay ma dhammayn kartaan oo ma soo koobi kartaan marka nimcooyinkaas tirada badan ee aan soo koobitaanka lahayn mid ka mid a waxaa ka mid a maqalka in aad wax maqasho waa nimco ilaahay uu ku siiyey nimcadaasna waxaad dareemi kara qofka ay ka maqantay maqalku waa gallad iyo nimco uu allah siiyey bini aadanka maqalka waxaa ku dhici kara jirooyin kala duwan jirooyinkaasi kala duwan waxay u keeni karaan qofka in uu dhagaha beelo oo waxba u maqli waayo okay sidoo kalenta jirooyinkaas waxa ay keeni karaan in qofka uu dhaga cuslaado mid ama labada dhagoodba in culays uu ku yimaado ayadana waa jiro keeni karta in qofka culays uu ku yimaado maqalkiisa teknolojiyadda marka waxa ay hormarisay qalab fududeeya maqalka ama jabaqda kor u qaado oo qofka maqal culayska qaba uu ka faa'iideysto fiiri marka sawiradan hoose waa sameecadahaasi qofka ayaa dhagaha loo geliyaa wuu ku seexanaa wuu ku soo toosaa maanta oo dhan wuu wadanaa sababtoo ah qofka naafada ka lagu haba birihiisa ma dhigo oo maanta oo dhan wuu sitaa qofka indhaha ka qabo aragga inuu liito kalanto maanta oo dhan waa inuu okiyaalaha wataa oo uusan dhigin sameecadahanna marka waa kuwa ayagana qofka 24 saac dhagaha ugu jiraayo haddii uu iska bixiyo maxaa dhacayo wuxuu dhacayo inuu wax maqli waayo
سماعنا مركو حكي قيب قادنا إن قفك وح مقله قفكاس استعمالنا يا واي وقف أرج وقف مقل كليت قف مقل كيس ودم يهي أو وحبا المقلين وحما تريان سماعان لكن قفك مقل كيس وليته أي دكتور جسنايو وين وجريان أفر لا تنسى وحين كعاونayaan in ay codka kor ugu qaadaan oo codkii saafi ah dhegta loo diro waa ka marka waa samaacad yar oo la geliyo daloolka dhegta waxayna weynaysaa jabaqda si uu u maqlo qofka maqal culayska qaba qofka maqalka ku culus yahay ama dhagaha ka culus si ay codka ugu maqashiyaan oo kor ugu qaadaan ayaa qofka dhegta loo geliyaa iskama bixinaayo maanta dhan uu wadanayaa qalabkan waxaa loogu talagalay in uu jabaqda sare u qaado ama uu jabaqda saafi ah uu dhegta u diro intaas waxaan rajaynayaa inaan isla fahanay okay wax qabadka koowaad marka saaxiibkii ayaan su'aashan weydiinayaa waxaad aragtay arday qalinkiisa dhegta gelinaya maxaa tala ah oo aad siin lahayd su'aashan marka waa wacyigelin waa fariin adiga laftigaaga kugu socoto waxaa laga wadaa qalinkaaga dhegta ha gelinin sababtoo ah waxaa suuragal ah cudurrada aan ka hadlaynay ee sababa qofka inuu maqalku waayo ama maqalka ka cuslaada in qalinkaas aad dhegta ku jeynayso uu sabab u noqdo su-aasha marka ardayga waxaa loo weydiinayo waxay tahay war hooy ardayow dhagahaaga ilaasho okay waxqabadka labaad marka waxa aan soo baarayaa noocyada sameecadaha dhegta iyo sawiradooda sameecadaha ma aha kuwa airphone-iska ah ee aan wax ku dhageysano ee waa kuwa dadka baahiyaha gaarka ay qabaan noocyadooda ayaan soo baarayaa iyo sawiradooda kadibna waxaan la wadaagayaa macallinkeyga waxaan rajaynayaa marka in aad si wanaagsan u fahanteen cashirkeennii afaraad oo ku saabsanaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan dadka maqalka baahiyaha gaarka qaba inta cashirkan cashir la mid aan ku kulmi doono waa Cabdicasiis Weli oo idin leh assalaamu calaykum